السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa khamiis bisha February waa 24 sanad 2022 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine oo dad fara badan ay ku dhinteen iyo ciidamada dalka Ukraine oo la soo tabinayay inay ka dhinteen ilaa 40 askari halka Ruushkuna dhankiisa ay ka dhinteen askar fara badan diyaarado badanna lagu soo riday meelo kamid ah dalka Ukraine waxaana gubanaya magaalooyin fara badan oo ku yaala dalkaasi Ukraine ciidamada dalka Ukraine waxay sheegeen in yar iyo weyn dadka ku nool dalkaasi Ukraine loo baahan yahay inay ciidamada ku biiraan isla markaana dalka difaac xoogan loo wada galo caasimadaha ugu waaweyn dalkaasi Ukraine ayaa xidhan oo hawanaya waxaana dadku ay xilligan isugu soo baxeen meelaha laga qorayo ciidamada ku biiraya dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi Ukraine waxaana dalka guud ahaan ba laga codsaday dadka ku nool shacab iyo waliba ciidanba inay u istaagaan difaaca dalka la dulmiyay ee Ukraine qodobadaas ayaan ku falanqeyn doonaa haddii baydma barnaamijkeena waxaana barnaamijka igu heliyay saaxiibkay Maxamed Wacane oo laaba ka faalooda xaaladaha dunida ku soo kordha waxaana soo dhow waxaad sida ula socotay saacadihii la soo dhaafay duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine waxaana la soo tabinayaa xaalado daran iyo dhimashooyin aad u fara badan in xilligan ba durbaba ay ka bilaabatay dalkaasi Ukraine bal noo faahfaahay xaaladda halkaas ka taagan aad baad mahadsan tahay Cabdixakiinow Ruushka oo ku duulay dalka Ukraine iyo sidoo kale meelo holcayo iyo diyaarado laga soo riday dalka Ruushka marka Cabdixakiinow hadda waxaa la soo sheegayaa dhimasho aad u tiro badan oo labada dhinacba halka Ukraine ay qirteen in ay ka dhimatay in ka badan 40 askari Ruushka dhankoodana ay sheegteen in ay ka dhimatay in ka badan 40 ama konton ilaa intay dadku ay hadda sida saxaafadu ay tabinayso waxaana dhanka Ruushka hadda khasaarada dhabta ay soo gaadhay ay qirteen in laga soo riday 5 diyaaradood dhinaca kale ee Ukraine waxa ayagana khasaarada soo gaadhay ay ka mid tahay in ay gubanayso caasimadii wadanka oo ay la sheegayo in la dhacay gantaalo dhinaca cirka iyo sidoo kale kuwa ridada dheer dhammaan hadda wadamo badan ayaa ka falceliyay arintani midowga Yurub haweeneyda madaxweynaha waxay sheegtay in cunaqabatayn dhinac kasta la saari doono Ruushka cunaqabatayntaasi waxaan ka ahayn oo wadamada hadda ay ku hanjabayaan ma jirto marka laga reebo dhanka Mareykanka oo uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka in uu telefoon kula xiriiray dhigiisa Ukraine halkaasina ay isla afkarteen in talaabo military ay qaadi doonaan saacadaha soo socda wadamada xulafada la dalka Mareykanka waxaana la rajeynayaa in wadamadii garabka taagnaa dalka Ukraine ee u durbaantumayay in ay saacadaha soo socdo talaabo u qaadi doonaan sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka balse waxaana madaxweynaha dalka Ruushka oo hadlay ayaa wuxuu sheegay in cid kasta oo dagaalka kula soo biirta dalkaasi Ukraine isla markaana ka hortimaada duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine ay la kulmi doonto cawaaqib xumo iyo waliba in Ruushku uu talaabo ka qaadi doono hanjabaadda Ruushka waxay u dhibin doontaa in la taageero dalkaasi Ukraine hanjabaaddaasi horta waxay noqon doontaa mid oo aan micno ku fadhinin waxaan ognahay inuu jiro qaanuun adduunka dhan u degsan iyo sidoo kale golaha amniga ee adduunka yani ay dejisteen taasi oo ah inaan wadan madax bannaan aan lagu duuli karin hadda dalka Ukraine waxaad ogeyd toddobaadadii ugu dambeysay in Ruushku uu ka waday dandaansi xoogan kaasi oo uu aqoonsaday laba gobol oo dalka Ukraine kamid ah uu aqoonsaday inay yihiin dawlad madax bannaan ama ay iskood ay u taagan yihiin halkaasi madax bannaanidooda ay helayaan waxaan ogeyn in Ruushku uu ciidamo ku daabulay labadaasi gobol oo uu hubeynayay kuwaasi oo yani markii dambe ka soo horjeesaday dawladda Ukraine oo dagaal ay isku qaadeen marka arintani hadda Ruushku uu ku andacoonayo waxaad moodaa inaysan meel weyn gaarsanayn hadda dalka Turkiga ayaa kamid ah wadamada ka falceliyay dhigooda Ruushka Vladimir Putin la hadlay telefoonka ku wacay arintaasi inuu ka noqdo wadamada kula hadlay wadankaas kamid ah sidoo kale waxaa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo asagana uga digay in Vladimir Putin arintani uu sameeyo uu ka laabto isku soo duudub arinta dalka Ukraine iyo Ruushka meel xun ayay gaadhay dagaalkuna wuu socdaa diyaarado badan ayaa la soo riday Ruushkuna ciidamo aad u tiro badan oo kuwa gaashaman iyo kuwa cirka intuba dagaalka way ka qayb qaadanayaan waana lagu sii daabulaya mana jirto hadda hal wadan oo kamid ah wadamada adduunka oo dagaalka ku soo biiray ma jirto marka laga reebo sheegashada iyo sidoo kale ficilka ay sameyn doonaan oo ay ku soo celcelinayaan waxaan ka ahayn ma jirto Cabdixakiinow
dalka Ukraine madaxdiisu maxay ka dhaheen xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay iyo shacabka iyo waliba dagaalkan hadda lagu soo qaaday meesha ay wax marayaan iyo warbixin ma siiyeen dadkooda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine oo hadlay ayaa sheegay in wadanku uu ku jiro xaalad aad u khatarsan wuxuuna ka codsaday wadamada ay xulufada yihiin in ay arintani soo farageliyaan waxaana la maqlayay caalamka caasimadda oo shidan يعني عالمك أو دقنينتا دتك ودقيو أو لشدة مال والبلغة شدة ودنك يوكرين سيدو كليتو إذا مدى يوكرين هيجن أيال جليي ملاحظنا وحي كو أمر سامة دتك أي كو خصبيسا إن أي عيدنك كوسو بيران سفلو الدفاع ودنك يوكرين إن ما أمرك وجوه رئيسي أو روشكو كوسو قادو وير نوعاني وكليتا مرة رأيه هيد markii uu weerarka ku soo qaaday ee gobol kamid ah uu ciidamadiisa ku soo daabulay markii dambana xal ayaa laga gaaray laakiin tani waxaad moodaa in ay horseed u tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka wadamada Yurub waxay ku baaqayaan in nabadda iyo xasiloonida wadamada Yurub la ilaaliyo Ruushkuna arintani uu ka laabto mana jirto ilaa xilligan Ruushka arintaasi wax uu ka bixiyay oo maramsiya waana weyn waxaanu in dalka Ruushka duulaankaas uu ku qaaday dalkaas Ukraine in fara badan laga qeyliyay isla markaana warbixino badan dunidu ka soo saartay qaramada midoobay ka hadashay Mareykanka ka hadlay Yurubtu ka hadashay cid walba ay isku dayday in Ruushku ay baajiso duulaankaas uu ku wado dalkaas Ukraine balse Ruushku uu ka baaqsan waayay waxaana uu gudaha u soo galay dalkaas Ukraine duulaankiina uu ka dhabeeyay maxaa Ruushka riixaya oo xilligan uu damacsan in dalkaas Ukraine guud ahaanba dhulka wada simo Cabdixakiin wadsad waqtay baa Ruushku Ukraine dal ahaan oo ma aqoonsano ficilada uu sameynaya markii loo fiirsado wax dala uu aqoonsan yahay ma aha taasi ayaana hadda keenayso in Ruushku uu rabo yani ulbalaarsi iyo sidoo kale to in aqoonsigan wadanka Ukraine iyo Sovietigiisa uu farageliyo halkaasina uu ciidamo markasta oo ugu faano power uuna ciidamo ku daabulo adduunkuna arintani indhaha ayuu ka daawanaya waxaadna moodaa in Ruushku waxyaabihii uu ku faani jiray iyo hubkii uu ku faani jiray in maanta uu ku soo yani dhoolatus uu ku sameynayo wadanka Ukraine oo markii labada awoodood la isku eego ay aad u kala fogtahay marka taasi ayaana keenayso in Ruushka maanta dhibaatada uu ka geysanayo wadanka Ukraine ay maanta soo fooliyirto waan gartay aad baad u maasatay waxaan qodobka ugu dambeeyay haddaan eegno dadka Ukraine ilaa iyo hadda dad fara badan oo waxa jira ku xaniban oo xitaa ay ku jiraan dad Soomaaliya oo halkaas ku sugan maxaa xaaladooda laga warhayaa dad aad u tira badan oo ama Ukraine u dhashay ama dad foreigner ayaa ku xayiran gudaha dalka Ukraine wadamada reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska ama wadanka UK waxay wadamadooda dadkooda uga digayeen ku sugan wadanka Ukraine in ay iskaga soo baxaan digniinihiina hadda waxaad moodaa in ay faraq ka baxday oo meeshii uu hadda dagaal ka socdo dad badan oo Soomaali iyo sidoo kale ajaanib kaleba ah ayaa wali ku xayiran gudaha dalka Ukraine oo hadda duqeyntu si toos ah ay uga socoto waxaana dadkaasi Ilaahay uga baryeena in uu ka badbaadiyo dagaalka iyo sidoo kale dhibaatada halkaasi ka socoto siiba ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan dhulkaasi aad iyo aad baad maasan tahay saaxiibayalkaasi wuxuu ahaa saaxiibkay Maxamed Wacaan oo ila falanqeynaya xaaladii ugu dambeeyay ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaas Ukraine oo meel xun maraya tani inta ku kulmi doona barnaamijka xiga waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo